akhyaarta soo dhawaada waxaan rabnaa maanta inaan maxaa la yiraahdaa aan qodobkan aan ka hadalno dad badan maxaa la yiraahdaa oo waxaa jiro Facebook-gooda maxaa la yiraahdaa ii sheeg rabay inay delete gareeyaan. Okay, marka dhowr qof ay soo weydiisay qaabka loo tiro, marka waxaan garowsaday inaan maxaa la yiraahdaa aan ii sheeg si public ah inta mar walba qof aan u sheegi lahaa si gooni ah u sheegi lahaa inaan si public ah aan idinla wadaago. Waxaa kala socon kartiin Captain CC official YouTube-kaas kala soconaysiin. Anyway, bal aan aadna marka waxaan galaynaa Facebook. Kan waa user-kayga caadiga ah. Marka halkan amarisid tusaale ahaan idigu tusinayo mid hadda fake ah ima samaysano aan maxaa la yiraahdaa ku baroowe. Marka waxaan ina tusayo kaliya istaabada loo maraayo. Okay, aan bilowno. Dadka mobilada haysto iyo dadka computerada PC ka isticmaala laptop mise nooc rabaado already mar walba hada mobilkaaga haystid wuxuu ka marayaa maxaa la yiraahdaa dhanka midig user-ka saa ognahay. Sorry. Marka Facebook-gaaga gashid hatta mobilkaaga gashid waxaad tagaysaa waa afar option u leeyahay. Waa home iyo maxaa la yiraahdaa hadduu Facebook-gaaga update yahay iyo add friends-ka meesha dadka kugu soo darsaan iyo notification-ka iyo calaamad oo saddex xarig leh. Yani waxaan ka wadaa saddex xariiqin leh. Saddex xariiq marka ku dhufatid user-ka tagay. Waa waxaan ka hadlayaa mobilka. Xagga laptop-kana mise computer-kana waa kana account aad tagaysaa. Account marka aad tagtid waxaa leedahay setting and privacy. Marka aad tagtid waxaad ka sii tagaysaa setting-kaad ka sii tagaysaa. Setting marka aad ka tagtid gacantaada bidix fiiri journal, security and login iyo your Facebook information. Tan noqosaysa marka waxay tahay your Facebook information aan ku dhufano. Wuxuu ku keenay your Facebook information halahan access your information, transfer and copy your photos and video. Hadda rabto ka macnaha ka baxsan kartaa. Download your information ka ku samaysan kartaa information ku jira download gareysan kartaa. Active okay, tan aan rabno waxay tahay deactivation and deletion. Waa tan aan rabno waa intaas. Meesha marka waxaa ku qoran temporary deactivate iyo permanently delete your account. Okay, tan aan rabno waa tan aan ku dhufano. Labadan option oo keena deactivate macnaha waxa weeye macnaheeda waxaad hawada ka saaraysaa Facebook-gaaga muddo yar oo kooban. Marka meesha aad ku dhufatid deactivate su'aalo badan ku weydiin doona oo ah maxaad hawada uga bixinay, maxaa jiro meeqa wax temporary time-kaas waxaas adiga marka su'aalahaas ku weydiina. Okay, delete aan ka rabnaa. Kan waa user-kayga rasmiga ah marka ma rabo inaan maxaa la yiraahdaa aan tiro laakiin ilaa meesha ugu dambeysaan isla tagayna haduu Ilaahay idmo. Okay, continue aan dhahno. Continue markaan niraano wuxuu noo keenayaa labadan asoo mar walba oo ku siinayo maxaa la yiraahdaa ikhtiyaaraad yani ina aad dooratid optionada si inta wuxuu ku leeyahay to keep messenger deactivate instead marabno download your information. Waxaasna waxaan leenahay mabribiye batatan babaalka hawada inaan ka saara rabaa delete account alle. Delete account marka yiraahdo meeshan ku keena daais dheera oo jeedin meeshaas marka waxa gelinaysaa password-ka gelinaysaa password-ka marka gelisid waxaa leedahay continue. Marka continue hadda tiraadid already su'aalo ku keenaya marka waa ana ugu talagalay ina hadii yani oo si rasmi ah u dhufto waxa waaye toos u baxaya. waxaan filayaa inaan isla fahno.